kale iyo kulanti ismaqal wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada intaana casharka u guda gelin saaxiibayaal waxaan rabaa inaan xog yar oo guud aan idila wadaago awal saa la socotaan casharadeena sabtidii xadda soo gelin jirnay oo laba samarba rukun inoo ahaa iyo lama dhaafaan marka maanta kolay markaad casharka aan soo gasho aragtaan waa dareemi doontaa inay wax isbedeleen awal waxaan arday oo wax barta oo subaxdii waxbarasho u kala kadibna galabtii ka soo guriyo noqda runtii ma saamaxi jirin inaan maartay maalin walba cashar soo gasho marka laakiin hadda waxbarashada waa la xiray fasax 3 biloodka ahaa oo samarka ahaa waa la galay marka waxaan go'aansaday maadaama hadda aan firaaq ahayo oo chance iyo maartay fursado ii soo banaanaadeen inaan fursadahaas ku buuxiyo casharadan hadda aan sabti xaddi kaliya oo ku koobi jiraan maalin walba joogto ka dhigo runtii waxaad ogtiin qof markuu qorshe la yimaado ama baleen u soo degsido wixii leeyahay meel ay ka bilowdaan meel ay ku dhamaadaan runtii diyaar marba targetkaygu wuxuu ahaa tira inaan gaarsiiyo aan ugu talagalay insha Allah tiraas markii la gaarin idinka ogaan doona hadii Rabbi idmo marka inaad ila socon doontaan oo asla haysan doono baa idin rajeynaya hadii Rabbi idmo insha Allah marka saaxiibayaal intaas yarta ma rabaan xogta yarta koomba rabo hordhac inaan idin wadaago haddana waxa insha Allah casharadeena hadii wax kale iga soo dhexgelin insha Allah joogtaan ka dhigo doona hadii Rabbi idmo waa sida aad qorshe u yahay ilaa inta ka gaarayo xadidkii ama limitka aan ugu talagalay hadii Rabbi idmo insha Allah wada socosho iyo wada jir baa inoo astaana iskuna ognahay haddana waxaan gudu galaynaa casharkeennii oo maanta xoogaa iska yara kooban zindomes tases short sentences jumlada gaagaaban yaa hi hello or goodbye saaxiibayaal ereyga yaa afguriga markii la joogo dhowr siyaabood oo kala gedisan baad u isticmaali kartaa marka koobaad markaad qof is aragtaan ama qof ka soo horbaxa martina qof marka koobaad allaada shid yaa oran kartaa ama yaa soo oran kartaa hal qof haduu yaa saasna oran kartaa dad badan yaa saas kale wuxuu isticmaali karaa marka qofka rabtid inaad weynaysid oo kale haduu maartay boos camal yahay oo kale asna yaa saas oran kartaa marka ereygaas wajigiisa koobaad inaan fahanteen baan filayaa marka labaad waxa u isticmaali karaa hadaa qof wada joogteen ama qof wada sheekaysanaysaan oo qofkii rabtid inaad kala tagtaan oo kale meeshaad macsalaam ama bye isku oran lahaydeen oo kale waxaad oran kartaa yaa oran kartaa oo ka dhigan bye bye ama macsalaam ama nabadiino kalimera good morning subax wanaagsan saaxiibayaal ereygan asna waxa loo isticmaalaa subaxdii ilaa galabtii inta laga gaarayo waxay ka dhigan tahay ereyga koobaad ama isku salaamaan ama isweydaarsadaan ama isku dhahan Giriyaanku ama luqadda Giriigga dadka isticmaala marka ereygan waxa la isticmaalayaa maalintii gelin karo dhan ilaa galabtii inta laga gaarayo kalispera good afternoon or good evening galab wanaagsan ama fiid wanaagsan saaxiibayaal ereygan asna waxa uu isticmaalaysaa galabtii wixii loo gaaro ilaa fiidadka kale ereygan kalispera oo ereyga labaad ayaguna isku dhahan ama isweydaarsadaan markay isla hadlayaan ereygan waxa la isticmaalaa galbihii ilaa fiidadkii inta u dhaxaysa kale good night habeen wanaagsan saaxiibayaal markii fiid dhaafto oo habeenka caadiga la iska gudagalo ama habeenka caadiga ay noqoto ama habeen u dhan hadii tahayba aadna rabtid inaad isticmaashid ereyga habeen wanaagsan kale nikhta baa isticmaalaysaa oo ereygaas casharkeena maanta wuxuu daaranaa ereyada koobaad ama la isku salaamo ama la isku baridiyo ama war kale inta la guda gelin waxa way kow la isku salaamo anagoo bulsho islaamaan nahay marka saan isku salaamin lahayn diinteena suuban ba inoo jideysayba marka laakiin waxaan ka hadlaynay dadkan dhaqankooda iyo luqadooda baan ka hadlaynay waxa maartay koobaad isweydaarsadaan inaad macnaha difaan guud u yeelataan marka saaxiibayaal casharkeena maanta intaas uu ku yahay waan Xaaji Yuusuf waxaan leeyahay marna guusha ka raja dhiganina waxaan ka tagay salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh like iyo subscribe inaa isku saacidnana waxa weeye waan ka rajaynaya aad u mahadsantiin